niyo aad iyo aad bay jaamac u mahadsan tahay maanta halkan waxaan iskugu nimid daafurkii maxaa la yiraahdaa rasmiga ahaa ee guddiga sare ee warbaahinta Puntland oo ay iskugu yimaadeen guddiga sare xubnihiisa iyo danayaasha warbaahinta stakeholderska waxa weeye la yiraahdo oo waxaan halkan guddigu ka kooban yahay 7 xubnood xubin waxay ka imaanaysaa wasaaradda warfaafinta ama wasiirka ama sarkaal sare wasaaradda kamid ah xubin waxay ka imaanaysaa warbaahinta dawladda laba xubnood bay dawladdu meeshaas ku leedahay maab xubin baa ka imaanaysa annaga soo magacawnay bulshada rayidka laba waxa ka imaanaysa xubnood oo maxaa sida ku cad maxaa la yiraahdaa xeerka warbaahinta qodobadiisa laga bilaabo 18 ilaa 24 annagoo dabaqayna waxa kale oo gururka qareenada qof baa ka imaanaya khabiir saxaafadeedna waxa weeye soo ansixinaysa wasaaradda tacliinta sare ee Puntland 7 xubnood ayaa meesha iskugu yimid kadibna wasiirka warfaafinta ayaa dekreet rasmi ku soo saaray xubnaha kan shirkooda ugu horeysay ayaan maanta halkan waxa weeye aan isugu nimid waxaanu u qabanaynaa wacyigelin marka ugu horeysa oo shuruucda ku saabsan iyo xeeroosaadiyada ay samaysan lahaayeen kadibna maalinka bari ah waxa isagana gali doonaa bal iyagu si isku dooran lahaayeen insha Allah taala gudoomiye ku xigeen xooghaye iyo khasnajibu iska dhex dooran doonaan 7daas qof guddigan sare ee warbaahinta Puntland waxa uu soo jiitamayay muddo badan oo sida xeerka warbaahinta waxa weeye uu ku jiray fursad baan u helnay maanta inaan anagu halkan ku dhisno isku soo aruurino dadkaas maab waxay leedahay fududeynta shirka qabsoomidiisa iyo guddigan hawshiisa in la dhiso guddigu uu naga madax banaanan doona dawladda iyo maab labadaba ka madax banaanan doona dhexdooda inuu taagnaan doona wuxuuna mainly shaqadiisu noqon doontaa isku xirka maxaa la yiraahdaa dawladda iyo maxaa la yiraahdaa inuu u dhaxeeyo iyo warbaahinta oo ay guud ahaan maxaa la bulshada rayidka warbaahintu ay maxaa la yiraahdaa qayb ay ka tahay ninka la yiraahdo jaamacow waa guddi wax badan la sugaay markii ugu horeysay way Soomaaliya guddi waxa weeye noocan oo kala oo isku dhaf ah laga sameeyo insha Allah taala waxa rajaynaynaa in mar dhow ay gudaha galaan shaqadooda oo ay kamid tahay diiwaangelinta wariyaasha iyagu inay bixiyaan kaarka aqoonsiga yaa suxufi noqon kara kadib markii imtixaan la mariyo xarumaha warbaahinta wariyaasha ay anshax marin doonaan waxa ay dhageysan doonaan cabashada warbaahinta iyo dawladda labadaba waxa way ka timaada iyaguna waxaan isleenahay culays badan bay annaga na saarnaa markii hore maabahan bay guddigaas nagala qayb qaadan doonaan in qaybtiisa maxaa la yiraahdaa ay nagala degaan